waxaan ku bilaabaynaa in arrinta ku saabsan gooni isu taagga Somaliland 1991 ayay arrintan ku dhawaaqday Somaliland ilaa iyo iminkana wax ka soo naasacadaaday ma jiraan oo aqoonsi ah oo la hayo inkasta oo hanaan dawladeed uu ka hirgalay iyo kala dambeyn oo iminkaba doorasho ay dhacayso oo dimuqraadiyadna ay meesha ka jirto Faisal ayaan doonayaa haddaba inaan ku hormaro muddo rubuc qarni iminka ka badan ayaa la baadigoobayay in اعتراف له adigu hadii aad madaxtinimada ku guuleysato maxaad doonaysaa inaad samayso si aqoonsi aad u keento bismillaahir rahmaanir waxa weeye horta aqoonsiga Soomaaliland waa sharci adduunka oo dhan sharciga u taala u ogashahay charter EU waa ogashahay ka United Nations waa ogashahay waxa weeye Soomaaliland wax naga dhaxeeya ma jiro leverage leedahay nagu leedahay ma jirto dawlad baan la dagaalanay dawladda Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu naga siiyay guushi way ka dhacday meeshii Soomaaliya hadda ma jirto wax Soomaaliya ilaaho been baa loo magacaabo dawlad aan jirin la magacaabo la aqoonsaday marka waan loo hawlgelin magaalada reer Soomaaliland dawladda iska dambeeyay uma hawlgelin iyaga isku meeraystay waxaan ku kalsoonay insha Allah ta'ala 2019 concept kan sameeyay two state solution ilaaho inaan adduunkana ka iibiyo Soomaaliyana ka iibiyo إن شاء الله تعالى أن صو أفجره مرنك سومان نادي سوماي ودحيا إن هن واحد شرئ واحد أبوري أتاي أو ما أنت الدولة أنو ساي سنة سوماي لساني متشرتو يجي بقى عم تيجي أوباهن مركا وحن كلها هاي أنتوا حوي دولة من مقر ما إن شاء الله تعالى وحن كلا صار يا معارية محافظة إلى بنشوتشيا وحقف كسوحن كده يا إنه الدولة ده صوت ماتو والدولة تكنوكرات وأقام له أيام سمينيا وحقوق دي الدونتان دونية ونكسر عليه سومانا شربت كل هالجيسك أفريقيا Soomaalidu dhan ay sharaf ku yeelataan doonaya insha Allah ta'ala ma tantahay Faisal aad iyo ma tantahay Muusabixi waxaad doonaysaa qaab noocee ayaad doonaysaa in aqoonsi aad u keento Bismillaahir Rahmaanir Rahiim marka hore kuwa raacsanay aqoonsiga Soomaaliland waxa kama soo naasacada doona saacadihiin waa hawl socoto wax badan laga qabtay sida loo raadinaya anagu qorshahayagu yahay waxa weeye laba wadaan raacayna waa ka koobaad waxay noqon u gudbinaa arintayada Afrika waxa ka bilaawnaa igad iyo midowga Afrika tan waxaan u gudbinaynaa caalamka kale waayo waa arin Afrika marka halkaas aan xoojinaynaa horaba arintaas oo jirtay laakiin hadda halka xoog baan saaraynaa qodobka labaad waxa weeye waxa bilowday in kastoo mira dhalin wada hadallo u socday Soomaaliya iyo Somaliland wada hadallada waxaanu aasanahay fariid ka noqdeen dhinaca Soomaaliya oo aan si hagarla u hawlgelin waxa kale oo aanu u aragnaa halkii lagu qabanayay oo teerka ahayd in ay wax dhexdhexaadin ama facilitation ama waxa loo ku kordhisay aan jirin wada hadalladaas inay hore maraan sidaa darteed waxaan leeyahay arrin kastoo adduunka dhacdo waxa lagu dhameeyaa wada hadal marka inuu hadalka geeyno caalami ah arka dalalka jaarka iyo ku xoog weyn iyo caalamku waa dhex yimaadaan oo aanu si wacan u garnaqsanno taana waanu xoojinaynaa waa hagaag waa mahadsantahay Muuse Cabdiraxmaan Cirro qaab noocay ayaa doonaysaa aqoonsi inaad ku keento Somaliland bismillaahir rahmaanir rahiim qaabka aanu hawlgelinaa gudaha midna waa dibadda gudaha Somaliland waxaan doonaynaa inaan noqono dawlad sharciga ku dhaqanta muwaadiniinteedu u siman yihiin xuquuqul insaanka ilaalisa saxaafadda xorta ilaalisa inta ka bacdi waxaan doonaynaa inaanu dawladaha aanu jaarka nahay iyo dalalka EU-da iyo IGAD xiriirka aan la lahayn la kordhiyo wixii tallaabooyin hore loo qaaday ee EU-du qaaday ahaa xaq raadintii arrinta Somaliland dib loo soo cusboonaysiiyo waxaan doonaynaa xiriirka aan la lahayn dalalkan saaxiibka nahay in la soo nooleeyo oo soo dhacbadan ku yimi waxaan doonaynaa in wixii naga xumaaday iyo sababtii u socon weyday ictiraafka Somaliland waxaanu qabnaa in dib loo eego waxaanu qabnaa in Somaliland wax badan qabsatay oo lagu aqoonsan karo
hase yeeshee beesha caalamku aanay u dhega nuglaanin somalilan waayahay saddexdiinaba ama labadiina dambe muuse iyo cabdiraxmaan inta badan waxaa soo celceliseen beesha caalamka iyo igad iyo laakiin waxaan ogsoonnahay in tobannaankii sana ugu dambeeyey waddamo aan badnayn oo dunida ay kala go'een sida bilmatel in east timor ay ka go'day indonesia south sudan inay ka go'day suudaan laakiin dhammaantood qaabka ay u go'een marka la fiiriyo waxay ahayd qaab ay raalli isaga ahaayeen waddamadii kala go'ayay marka soomaaliya markii teeda aan ka hadlayna iyo somalilan ma jiraa wax qorshe ah faysalan ku laaban doonaayo bilaabi doonee ma jiraa ilaan adinkay dan isaga kiin xihan tahaye inaad meel wada fadhiisataan oo aad ka hadashaan bal inaad kala tagtaan faysal anaga iyo waddamadaas sheegtay isku mid maaha waddamadaas waxa weeye way kala adkaan waayeen waxa la joojiyey dhiigga waa la dhex galay meel dhexa la isku yimi waqti baa la siiyey South Sudan iyo Timor annagu dawladdii waanu ka adkaanay alxamdulillahi rabbil caalamiin ilaahay baan siiyey guusha wax allaah waxay maanta Soomaaliya nagu leedahay leverage amban ay awood nagu leedahay xoog nagu ma qaadi karto dhaqaale nagu sameyn karto dawladaha wata ee danta gaarka wata ee ixtiraafay ayuu baa noo dabray oo daba sida oo magaalada dawlad aan jirin waxa weeye arintani waxa weeye arin xaq waa loo dadgelin waa loo hawlgelin annaga isku habsaanay gudahayaanu hagaajinay insha Allah taala wana imanka khaatuma hadda heshiinay Soomaaliland oo midaysan oo kaligeeda iyo dawlad midaysan oo qaran u sameyn doona insha Allah taala wax iyaga adduunkan weydiisan doona insha Allah taala Soomaaliya wada hadaladeeda iyada horta hagaajinayna iyaga aan doonayaan u qabano shir u qabano halkan ugu qabano oo dawlad u sameeyno Soomaaliya oo ni ku jirin kuwan Soomaaliland meesha u guriga doontaan ku jirin oo mid oo kaligooda markaasaanu danta Soomaaliya ka hadli doonaa markaasaanu iyaga oran doona okay annagu waxaan saddex Soomaaliya Djibouti Soomaaliya maxay u haystaan waan isqancin doonaa waxaan jeclahay aan qancin doonaa insha Allah taala laakiin marka waan iyaga hagaajiya anoo oday Soomaaliyeed baan ahay waxaan u sharaxanay Soomaaliya dhamo sharaxanay meeshii Soomaali baa ka jirto waan geliya insha Allah taala halkan baan isku yeedhiya insha Allah taala waayahay muuse ma arrintan ma kala hadlaysa Soomaaliya mise sida Faysal uu yiri waxba isaga ma keen xidhan horta dawladahan aad soo qaaday kala go'ay ixtiraafay labadii dhinac ay sayay ayaa labaduba bad qabeen ama dhinac bad qabay oo kii kala ictiraafay Eritrea iyo Ethiopia oo tii wareeda ayaa ogolaatay Eritrea East Timor dawladda ay ka goday Indonesia ayaa bad qabtay oo fayoobay oo talinaysa arrintii loo tago ogolaatay South Sudan sidoo kale Suudaantii weynayd baa laga go'ay marka iyadu waxa qashay tan way ka duwantay laba arrimoodba waa marka hore dhinacan dantu naga xiran tahay ee Soomaaliya ah iyagii 20 sano burbur ku jira marka caalamkana iyagii lama tashan karo oo iyagii sababta ka maqantay iyagina waa burbursan yihiin marka xaggooda taladu ka adkaatay oo xol la wadaag kar lahayn caalamkuna ilaa iyagii buu dhisayaa kul balay bal cid laga hadlaa horta ka soo baxdo wada hadal haa wala hadlayna danba iska ka xiran isma nabcin waa isla dadkeeni taladeena bas qaban weeyay dawladda dhisnay baa duntay marka waa in mid waliba sidii u noqoto taas waa qodobka kale marka waxa weey hadalka waa la hadlaya laakiin waxaan wali 25 sano waxaan nibanahay dhinacii kale ayaa burbursan oo waxba laga leeyahay laakiin waa hadal waa in lagu dhameeyaa wax walba waaya hay Cabdiraxmaan Cidro bismillaahir rahmaanir rahiim wada hadalka Soomaaliya xukuumadda joogta bilowday laakiin shacbigu ku raacsanaa in wada hadalka la bilaabo waxay ila tahay waxa loo baahan yahay gogol xaar wanaagsan loo sameeyo wixii wada hadal ee dambe waanu qiimeyn doonaa wada hadaladii hore iyo sababta midho dhali waayeen arrimaha Soomaaliland waxaan u qaban doonaa shir qaran oo laga hadlayo arrinta ictiraafka marxaladii uu soo maray wada hadalku loo baahan yahay wada hadalkii la sii wado waxaanu qabnaa in wada hadalku uu sii socdo laakiin waxa loo baahan yahay gobol xaar wanaagsan loo sameeyo si uu yeesho midho dhal haddii ilaahay ka dhigo ajendaa Soomaaliland waxa weeye in la helo dal qarana oo Soomaaliland la yiraahdo oo beesha caalamku ictiraafsan tahay ama laba dawladood oo jaara ah oo walaalo ah oo labaduba aqoonsi haystaan mashkiilada Soomaaliya oo jiitabeen oo la soconay iyagana u ducaynaynaa in ilaahay mashkiilada ka saaro hadalkaaga waxaan kala dhex baxay in ay jirto rajo ah in adinka iyo Soomaaliya
aad wada hadashaan oo wada hadallada ay sii socdaan wadahadalka in la sii wado annagu waxba kama qabno waay laakiin waxaanu doonaynaa qaran somalilan la yidhaahdo inuu wadahadal ka soo baxo oo ictiraafkiisa leh oo siyaanadiisa leh muuse intaanan faysal ku laaban waxaad tiri wadahadalladii fadhiid ayay noqdeen wadda nooceeya ayaa haddii madaxweyne aad noqoto u maraysaa wadahadalladaas in la sii wado marka koowaad waa in dhinaca muqdisho laga helaa dawlad adag oo wax ka gubi karaan oo dadku u guryihi ma kismaayaan la hadlaa ma baydhabaan la hadlaa ma garow waa la hadlaa mise xama mashkiladda caalamku uu leeyahay nimanka wada hadla waa in iyaga la helaa cid horta la doortay ummaddu dooratay go'aan leh kalsoone leh oon hadal la geli karo in la hadlaa waanu ogol leh oo bini aadmu wixii dhex marada hadal ku dhammaysto laba meesha lagu hadlayana waa inay tahay meel lagu negasheed garanayo oo dadka loo hadla ciidiin dhexayso oo laydiin garanaqayo ee aanay noqonin idinku sheekaysta si turkiga ka dhacday waay